wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afari nusafadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay now waranagu horanu goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaay waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an warbal dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane oo duceeyay allay leedahay war kala maanay maanta waa ducaynaya yaa amiin dhaha wada Cabdillah hadda koor wuxuu yiri nimayo dad lama aamino ama ha yiraahdo ama ha weynaade marka ducada waa iska hubinaynaa intaan amiin dhihin warka boose waa kan ducaynaye hadnu sheekha noqday war ulmiyoone aamuma ducaase aamin diga deeqlanka aryaadaha horta gaboose yow u duceeyha yow ka duceey hadan u heenaga ma dhaxayso waa is ognahay yaa arooda reer kala maano waxaad joogtiin maanta ducadiina ma siyaasiyeen war shaki waa batay leesna aamin ducada xataa 4.5 nagu qaybsha qaaluu inna lillaah heerkaas ma inaga joogtaa war horta mucaaradka iyo maxaafidku maanta ducada ma isku darsan karaan warnimay horta unu isan isku doodaba miyiin ma aaminsiin araana sababtoo hatu koora meeral bari la gabadlan oreer mudug waayeel ee safarka kooyaha mari maylaray lan kullan wiin ee waan safarka muuqday halaha dhooyo badar hal siyo leeri badar lisi dadkii madila fiirin lankinka daawiin anagadi markaas laari adeerow nin doaya leeri abadana ma kitibto wiilashanada soo ma jabaan halka ha guuleysto yaka bilaawi isku doodanahay waraadahay waxba daalinine anu waxaan qabaa gaboose inuu duceeyo markii maareeye iyo mahdi guuleed wada duceystaan aryaadaha idinkoon isdaalin madaxweyne farmaajo iyo cabdiraxmaan cabdishakuur bariga ma wada duceysan karaan war Shariif Xasan iyo lafta gareyn ma wada duceysan karaan warnimayo Generaal Xuud iyo Cali Guudlaawe maanta ma wada duceysan karaan war madaxweynayaashii hore Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh iyo madaxweyne farmaajo ma wada duceysan karaan war ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre iyo ra'iisul wasaare Roble ma wada duceysan karaan maanta arooda Axmed Madoobe iyo Faad maanta ma wada duceysan karaan war dhooba daareed iyo madaxweyne Dani maanta ma wada duceysan karaan madaxweyne farmaajo iyo gudoomiye Cabdi Xaashi maanta ma wada duceysan karaan war qalbi dhagax iyo nimankii indha ka xidhay Itoobiya u dhiibay maanta ma wada duceysan karaan rugtii ganacsiga ee la kala diri iyo wasiirka ganacsiga maanta ma wada duceysan karaan aryaadaha waxa la yiri isma hurtay heesalay Soomaalina isfuri mayso aakhirkana waa wada duceysan doontaa ninkan ma ka dhageysanaa ducada war ninkani Soomaaliland ma ducaynaya aan ka dhageysanay war dad loo ducayn kara ma tiidin dad la deyn karana ma tiidin sidaana la idin kuma daawan kare ducada Allah idin ku anficay dhageysto aroo duco kama darteeno bilow ilaahow hiiliyo hodonkan waxba waayinow haraatida sanadka bixi Allah naga hay adigu hirdida ka soo socdana rabbow naga mari hareer hunkaana dilootayo hamuun dawlaan qabnaaye Allah noo hagaajiyo carriga hodan nooga yeel war ducadu duco wanaagsan bay ahayd annaga aan duco wada socono aamintii ka baqaylnay war ya doodis faylata madiyad lankuuna lata dawliin hamuun qablan leeyahay hata dawlad la'aangana qaran dumis yow garasho wanaagsan soo dhagareen war waxa la yiri qaash iyo waran kama tunmaan qaylo waligeede qof haddaan la helin iga wallaan qaran samaysmayn warnamiyo habay gudaantiya hubma ka diyaarsama leeyahay wal yar leeyba dhimanaysa wallo la fadohay madaya wanagu qaylo war ma kama tunmaan baan u naqaana war ma haysaane rugtii ganacsiga waa kii wasiirka ganacsigu kala diray kadibna waa tuu wasiirku gudi kala magacaabo uu yiri waa ku meel gaar oo doorasho qabanaya ganacsato badani waa soo dhaweeyeen kala dirista gudigaas ganacsato kalena waxay leedahay waa sharci darro in wasaaraddu kala dirtaa mana aha hay'ad dawliya ganacsato kalena waxay leedahay sharci ma ahayn gudiga la kala diray wasaaradda maaliyadda mushaar ka qaadan jireen 20 sano meesha iska fadhiyeen doorasho in la galo isbedel yimaadna waa ay diideen in la kala dirana way ku habooneed wasiirkuna waa dadaalay ganacsato kalena waxay leedahay saddex nin oo gabayre iyo gooni iyo gaamba leeyra oo tiriiji aan u bixinay ayaa meesha iska haystay maslaxad ganacsatana kama shaqay jirin
marka dalku waayihii dambaba ganacsigu ku tiirsanaaye ganacsatadii laftirkooda ka dhex tulatay wararta inuu ganacsatada la sheegayo wax aqoon uma lihi laakiin hadday run tahay inay 20 sannadood madax ahaayeen keligood talisnima ka muuqata wixii lagu falana waa astaahilaan war ma haysiine garawe waa tii siyaasiyiintii oo dhan iu guureen welina shirkii ma furmin baa la leeyahay hoolkii loo diyaariyey baa ku yaraaday baa layidhi dadkii meesha tegey kadibna hool kalaa loo diyaarinayaa baa la yidhi 3,000 dad ka badan baa garawe isugu tegey baana la yidhi war meeli geel badan walka gooriyey wadadayo meeshii geel badan lagu cunay galmudug bay ahayd wixii ka soo baxayna ilaa hadda lama fulin war shirka garoowe iyo doorashadan lagu muransan yahay waxaan ku riyooday madaxweynaha go'aan ka gaaray waxaana ku riyooday madaxweynaha markii muranka iyo eedda doorashadu ku bateen inta gasha seefta ka siibtay yiri doorashada dib aan u dhignay ilaa amniga dalka aan si buuxda u sugno xuduudaha dalkana aan xaqiijino siiba xuduudda dalka Kenya warlow iyo cadam ku daray war ciidanka madaxweynuhu amniga dalka ku sugaayo ma Soomaaliya ama waa ajaanib wariye wax la iskama weydiiyeen suga wuxuu inta ku sii daray muddadan amniga sugayna 5 sano hanugu qaata haday doonto kadibna shirka garoowe u soo jeestay waana shirba madaxweynuhu sidaan riyada ku arkay wuxuuna yiri shirka garoowe waa go'doon lagana gaari maya guul war Axmedow malaha qof kalaad ku riyooto madaxweynaha ku qaladaye madaxweyne farmaajo weligii ma shirbin aryaadaha idinkoon is wareerin waxa hore loo yiri dad qayliyoon la qanciyeyn in la qasbi raaba qarsoon dad qayliyoon la qanciyeyn in la qasbi raaba qarsoon maahino war wax ma ogidin baarlamaankii waqtigiisu dhamaaday waxay muddada u kordhiyeen gudidii doorashooyinka madaxa bannaan ee xalimayare gudoomiyaha u ahayd waxayna ugu dareen 6 sano dastuurkuna arrintaa ma ogolo baa la yidhi sideebaa wax u jiraan arooda guddiga waqtigiisii ma dhamaaninaa la yidhi 6 biloodaan u sii dhimanaa la yidhi marka dawladda soo socotay inay kala dirto ama waqtigu u kordhiso marka waxaa yaabe yaa lagala ordaa intaas loo ordaa war waxa la yaaba sidee hay'ad waqtigeedii dhamaaday hay'adan waqtigeedii dhamaan haddana xilka ugu kordhisay war waxa la yidhi meel aan sharci ka jirin dambi kama jiro waxa kale la yidhi ilaahu niman wax ogeyn ha cadaabin wali kale la areeyha lug horoob lug damba dhaafa jawaasa war waxa kale la yidhi damacaagu hadduu bato indhuhu ka tira war abwaan raawi hadda ka hor wuxuu yidhi haddaad laqday daacadii adaa damacow yaqaan si aad uga dayn baxdee wixii dumadaada jiray ku sii dartu kaaga daran war adeero hunguri wax ka weyn la mariyaa wuu dilaacaa war waxa la yidhi xaajadii nin la toosanin bay tuurla leedahay aroo waxaa la yidhi nin weliba qumanihiisa qoorta ugu jiro aryaadaha ma waan hore loo dhihin taladu tii aalay teege tanu seemaha taaniqin taladu tii aalay teege tanu seemaha taaniqin aye warwar maysiina maxamed ibraahim macallimow oo mid ka mid ah ururada saxaafadda madax ka ahaa waxaa loo magacaabay afhayeenka xukuumadda xilkii hore saxaafaddu u dhiibatana meel uu isaga casilo lama hayo marka waxaa la yaaba Soomaali nin meesha ku ogtaa loogu imaanayo ma jiro war Soomaalidu xilalka waxay u isticmaashaa shabaag lagu kalluumaysto kale macallimuna xildhibaanu rabaa saxaafadna ka heli maayo marka waa inuu afhayeenka jarajar ka dhigtaa waranu dawladdan markaan eegay saxaafadda siday xilalka ugu magacaabayso waxaan isleeyahay waxay rabtaa inaan xaqiiqada la sheegin war haan heelkilin magacaabay may baka dorana haano beesilis yaa jira leeri markaasoo dhib kasta oo dhiye isku hindhitiraan afadaayan waraaf wax cunay xishooba hore loo yidhi ninkii lacag qaataa nabad iyo nolol ha ku celceliyo waradhaay war ma haysaane dhacdooyinka naxdinta iyo xanuunka badani waa soo badanayaane deegaan ceel waaq hoostaga gabar foolanaysoo laga qaaday oo gaari ambalaasa lagu qaaday oo isbitaalka ceel waaq loo waday ayaa niman shabaab lagu qiyaasay dhexda u galeen baa la yidhi kadibna gaarigii waa rasaaseeyeen ninkii gabadha foolanaysa qabay waa ku dhintaa la yidhi gabadhii foolanaysana waa dhaawacantaa la yidhi eedadeedna waa dhaawacantaa la yidhi darawalkiina waa dhaawacmaa la yidhi marka foolaa xanuunkeeda qofkii wax garanayaa og yahay dadka rasaasta ugu daray alla cadowsanaa warna miyaw degmooyinka shabeellaha
hoose dadkii ka dhex nool dhibaato wiina ka haysata la eri degmada jinaal walaay dad eka noolay amara lakasi inoo ka guuraan iyo wagahoote waa buufa ugi markanti ka dhex leefa fidhiyaanga la eri aryaadhaha cayaartii la korahaya inay arbacada dhacdo oo galmudug iyo gobolka banaadir dhex mari laheed khamiisay hee u dhacdaa la yidhi xaa jira warwalaweynay kubaddiina ma siyaasad baa ka dhigteen warwarka qowdhanaan ku xasuustay wasiirka amniga galmudug xildhibaan fiiqi wuxuu yidhi annagu arbacada waxaan rabnay koobku inuu galmudug u hoydo marka yaa noo fasiri kara sababta dib loogu dhigay yaa sale awoodda dib u dhigista war galmudug ma nabad iyo nolol bay noqotay iyadaa arbaca ku faashin jirtee aryaadhaha fiqihee wasiirka amniga u ahaaye xaa isboortisna ugu jira warna miya walmooshidiin geega baydhow binaanbao kodhii wali areena ayaartooydanon inolala dhaawa'a waanana noobadii mana gobota warmadeeyow sidee wax kaa yihiin koonfur galbeed iyada dhagaxtuurka bilowdaa la yidhi wareese macquulkanagaas inaanu is-shiidoyn maywaalanay haryamadeeyow cayaartooyda aad dhagax tuurteen kuwii gobolka banaadir aad u qabteenaa la yidhi war siyaasadda haddiinu dawladda shibunkaarni howi imaga maayo inaanu yaarta shibunkaarna war waxaa la yidhi magaalada laascaanood ganacsigii oo dhan waa la xirayo shilin soomaaliyaa soco waaye hadda barnaambaxyaa ka socda adeero meelaanta isticmaalaan maxaa u alay war jenaraal xijaar dadka muqdisho jooga waa kale ma bannaanbixi karaane bannaanbaxa laascaanood ka dhacaya mu wax ka qabto warwar maysiina baarlamaanka wakhtigiisu dhammaaday maanta heshiisyo kale oo ansixiyey aroo heshiiskan etoobiya la galni ma ansixiyeen war wasiir jenaraal mukhtaar iyo gobolka hiiraan xaggee kala marayaan warwalaweynay waxaad joogtiinba xuud baaba keenteen war koonfur galbeed haddii ayaartun wallanka gobona siinku gohaasa aryaadhaha warkiinnoo dhan anigu waxaan ku soo gebagabay lahay how nin eelkaa yaalla soo uunko kaa muusaale ee daataal nin eelkaa yaalla soo uunko kaa muusaale ee daataal nin eelkaa yaalla soo uunko kaa muusaale ee daataal nin eelkaa yaalla soo uunko kaa muusaale ee daataal nin eelkaa yaalla soo uunko kaa muusaale ee daataal xubintii kalamaan ee taasi